ninkii diyaarad soo furtaa asagaa diyaaradda ali waxyeeladeeda baa naftanaga naloo halaagay anu waxaa jirta habeen aan libaax halka hoos galo halkan shilaabaa baabuurna laga saaray saddex beri baan ceelka ku xasaysnayn hadallada qaar baa laga tagaa marba ooda ka qabanaya libaax geel u soo dhacay in handhoor la yiraahdaa baraagtaas bilaabay baabuur laanjo la yiraahdo taraashib iyo laanjiya miyaa taqaan maya in xasan qoryoole la yiraahdo anu malay inaad taqaano yaa dhuusa maree markaa haystay qoryoolagana isku reer baan nahay afka waa naqalaa kulanto wacan oo wanaagsan daawadayaal waa anigoo ayaan la saakin salabaan halkaan nagala socotaana waa Fansoor Media maanta waxaa santarka Balwiriir ee degmada Shiraabo aan ku kulannay mid ka mid ah odayaasha ugu caansan santarka Balwiriir waa Dhoof Cabdullaahi Xirsi aad iyo aad baan ku salaamayaa waana ku faraxsanahay aragtidaada iyo la kulankaaga masha Allah waxaa tahay nin waxyaalo badan u soo joogay bal adiga ku bilaabaya taariikh nololeedkaaga bal ku soo dhawow waan dhowahay taariikhda haddaan ku bilaabo meeshan Balwiriir baa la dhahaa magaalada weyn ee santarka صح ayada oo baadiya oo omosa oo libaax badan oo waraabo badan oo wada lahayn baan joog jiray heerka iyagu degi jiray libaax iyo nigeel jira iyo geel mooyaan wax kale ma joog jiray iminkana waa magaalada baraag laga qodo midii u horeysay baraag yar xilli abaaru dhacday biyo la'aan dhacday biyaha shilaabo ugu sukeeyeen baa in la aasaasay baraag lagu biyo shubto baa rag fakiray in handhoor la yiraahdaa baraagtaas bilaabay baraagtii u horeysay ee laga qodo saasay ahayd haddana baraagaheedu aad bay u baaxad weyn yihiin ceelkana waad artaa inta magaalada tahay baraaguhuna waa sidaa walaa marka magaalada biraheeda iyo dhismaheeda waxaa sabab ahaa oo ka horeeyay barkad hal sano ku dhawaad bay baraag yar oo biyo dadku saawma inta soo bixin bay ahayd loo soo arooro yay ka dhisnayd fikirka ku dhashayna maadaama oo dhulkii biyihii fog yihiin abaaro dhacday adduunyadiina gaari weyday ceelkii halkan inta xoolo ka arooraan aru ka arooro shalaab ka soo cabi jiray barkadii u horeysayna waxaa dhisay Xaaji Cabdi Maxamed Faarax waaga handhoor baa la dhihi jiray handhoor hadda Xaaji Cabdi Maxamed Faarax hadda laakiin haddaad handhoor dhahdo ruux kasta oo eeriyada joogo